بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وبمنك أو لطفك يا كريم. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. وبعده، waxaan kusoo jirnay kitaabkii al-usuul الثalaaثatu wa adilatuhaa. kanina waa cashirkeenii labaad. wuxuu nooga bilaabanayaa meesha uu yidhi sheekh raximahullah: iclam raximaka allahu annahu yajibu calaa kulli muslimin wa muslimatin tacalumu halaathi hadihi almasaa'ili waalcamalu bihinna. wuxuu yidhi sheekha: iclam ogow, raximaka allaahu allaha kuu naxariistee, annahu sha'niye yajibu inuu waajibayo calaa kulli muslimin ruux kasta oo muslima dushiisa, iyo wa muslimatin gabar kasta oo muslimada dusheeda, tacalumu halaathi hadihi almasaa'ili masaa-ishan saddexda ah barashadeeda, waalcamalu iyo ku dhaqan bihinna saddexdan mas'alo lagu dhaqmo. sheekha wuxuu yidhi: ogow allaha kuu naxariistee inuu waajibayo ruux kasta oo muslim ah iyo gabar kasta oo muslimad ah inay barato ama uu barto saddexdan mas'alo, kadibna uu ku dhaqmo. saddexdii mas'alo ayuu noo tirinaa. al-uulaa, mas'alada koowaad: anna allaha alle khalaqanaa uuna abuuray, warasaqanaa uuna arsaaqay, walam yatruknaa noogama tegin hamalan bilaash noogama tegin, bal iska badaayay arsala waa uu soo diray ilaynaa xaggeenna rasuulan rasuul ayuu soo diray. faman ataacahu ruuxii ateeco rasuulkaasi dakhala aljannata janno ayuu galay, waman casaahu ruuxii caasiyane dakhala annaara naar ayuu galay. waddaliilu waxaa u daliil ah qowluhu tacaalaa, alle qowlkiisa ayaa u daliil ah: innaa annaga arsalnaa waan dirnay ilaykum xaggiinna rasuulan rasuul ayaan dirnay, rasuulka oo shaahidan markhaati ka ah calaykum dushiinna, kamaa sidii arsalnaa aan u dirnay ilaa fircawn xaggiisa rasuulan rasuul aan u dirnay. fa casaa wuu caasiyey fircawn alrasuula rasuulkii ayuu caasiyey. fa akhadnaahu waan qabannay akhdan qabasho, wabiilan adag ayaan qabannay. sheekha wuxuu yidhi mas'alada koowaad waa inaan ogaano ilaahay inuuna irsaaqay oo na abuuray, uusan bilaasha nooga tegin, ee uu noo soo diray rasuul. rasuulkaa qofkii adeecdana jannada ay gelayso, ciddii caasana ay naar gelayso. arrintaas waa arrin muhiima oo ruux kastoo muslin iyo gabar kastoo muslimada inay ogaato, ay barato, kadibna ay ku dhaqanta laga rabo. mas'alada labaad: athaaniyatu, mas'alada labaad: anna allaaha alle laa yardaa raadi kuma aha an yushraka in lala wadaajiyo macahu alla la jirkiisa axad in lala wadaajiyo fii cibaadatihi cibaadadiisa. laa malakun malag maya, malaga oo muqarabun la soo dhoweeyey, malag xitaa lalama wadaajinayo. walaa nebiyun nebina maya, nebiga oo mursalun la soo diray. haddii loo diiday in malag alle xaggiisa muqarab u ah ilaahay lala wadaajiyo cibaadadiisa, nebi lasoo dirayna loo diiday cibaadada alle in lala wadaajiyo, hadda wixii kasii hooseeya way kasii liitaan. marka cibaadadu siday u dhan tahay ilaahay waa iskale, haddii cid loo leexiyana waa shirki ay noqonaysaa. waddaliilu waxaa u daliilay qowluhu tacaala, alle qowlkiisa: wa ana almasaajida masaajida lilaahi alle ayaa iskale,
falaa tadcuu ha ku caabudina oo ha ku baryina maca allaahi alle la jirkiisa axadan cid ha ku baryina. maxaa yeelay ilaahay keyrkiisa oo la baryo waa shirki ay noqonaysaa. idan mas'aladan labaadna waxay tahay cibaadada alle ha yaraato hase badnaatee waa in ilaahay keligiis loo khaalis yeelaa. ilaahay keligiis waa in la siiyaa. waana midda nebi maxamed sala allahu alay wasalam gaaladii qureysheed uu ka kari waayo waa ajacala alaalihata ilaahan waaxidan ay dhahayeen iyagoo rabo shirkiga inay ku jiraan. waaya athaalithatu mas'alada saddexaad anna man ataaca rasuula rasuulka qofkii ateeca wawaxada allaaha allana keli yeela laa yajuusu lahu uma bannaana muwaalaatu man qof inuu xiriiriyo u jeclaado uma bannaana xaadda allaha alla khilaafay wa rasuulahu rasuulkana khilaafay walow kaana qofkaasi haba ahaado aqraba qariibin midka dhow kan ugu dhow haba ahaado duu rabe. qodobkan saddexaadna waxay tahay alwalaau walbaraa man tuxibu waman tucaadi yaa jeclaane yaa sanaace ruux la arka ee ilaahay iyo rasuulkiisa adeecsan ee muslina ee u hoggaansamay waa jeclaane. ruux la arka ee alle iyo rasuulkiisa khilaafay diinkiisana aan shaqo ku lahayn waa u coloobe. taas ayuu noo sheegaa. walow qofkaas diinka ilaahay iyo daacadii nabiga sala alla ly slam bannaanka ka istaagay allah ka dhiga qaraabadaada kan ugu dhow beri ayaa ka noqonaysa. wadaliilu waxaa u daliile qowluhu tacaalaa alle qowlkiisa ayaa u daliila. ilaahay wuxuu yidhi laa tajidu heli maysid qowman qowmka oo yu'minuuna rumaynaya billaahi alle iyo walyowmi maalinkii rumaynaya maalinkii al aakhiri dambeeyey kuwaasoo yuwaaduuna jecel man xaadda allaha ilaahay cidda khilaafta jecel heli maysid wa rasuulahu rasuulka ilaahay cidda khilaafta jecel heli maysid walow kaanuu haba ahaadeen aabaa'ahum aabbayaashooda oo amase abnaa'ahum wiilashooda oo amase ikhwaanahum walaalahooda oo amase cashiiratahum qaraabadooda ulaa'ika kuwaasi kataba waa uu qoray alle fii quluubihim laabtooda al-iimaana iimaan ayuu ku qoray wa ayadahum wuuna ku xoojiyey biruuxin ruux oo minhu alle xaggiisa ka ahaatay wayudkhiluhum wuu gelinayaa jannaatin jannooyin tajrii ay soconayso min taxtihaa hoosteeda al-anhaaru wabiyaal khaalidiina xaal ay ku waaraayaan fiihaa jannooyinkaasi radia allaahu alle ayaa raadi ka noqday canhum xaggooda wa raduu iyaguna raadi ayay ka noqdeen canhu alle xaggiisa. ulaa'ika kuwaasi oo sidaas sameeya xisbullaahi ilaahay xisbigiisii iyo jamaacadiisii waayo. alaa hooyaay baraarugay inna xisballaahi alle jamaacadiisa hum iyaga unbaa almuflixuuna liibaanay. ilaahay jamaacadiisa keligeed ayaa liibaantay waana midda waafaqda aan dhehe kitaabka alle iyo sunnada nabiga sala allahu alay slam waafaqda qoladaasa waxaa la yidhaahdaa xisbullaahi. hada wabillahi towfiiq وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.